جيرو إذا كان ينسيني ساتر نوغو يبالو شاعر كي كالبوري سرايا من نسقامو أنسدو يا ابنوي كان سيبك نصار اللهم حرسته عبد الله سلطان تيمعاته أو كجبي حرينكي على كلا ساري مقالة حديثة intii haddaba aanay labada gobol aanay xornimada qaadan waxa muddo laga wada hadlayay sidii loo midoobi lahaa arrintaasi sida u dhacday waxay noo faahfaahinaya mar kale ama artiqal shirkii ugu horreeyey ee somaliland baarlamankeedii uu qaatay ayaa wuxuu u diray qaar soomaaliya baarlamankeedii oo markaa uu madax ka ahaa aadan cabdulla cusmaan iyagoo leh haddaanu reer somaliland nahay baarlamaankii matilayana nahay waxaan doonaynaa inaanu mid noqonno calan kaliya yeelano dowlad kaliya yeelano iyadoo aan shuruud lahayn waxaan doonaynaa arrintaa inaad degdega wax uga qabataan noola soo jawaabtaan baarlamaankii soomaaliya aad buu u soo dhaweeyey arrintaas mabda ahaan laakiin kumay degdegin oo markiiba umay soo jawaabin markii dabadeed arrintaasi sidaas tallaabada ugu horeysa ay saas noqotay ayaa aadan cabdulla cusmaan oo markaa baarlamaanka madax ka ahaa ayuu soo diray wafdi uu hogaaminayo dr maxamed sheekh gabyo oo markaa ahaa minister of constitutional affairs yani wasiirkii arrimaha dastuurka iyo dhowr nin oo kale oo ula socdo nin talyaaniya khabiir talyaani ah oo ingiriisida si fiican u yaqaan waxay markan kusoo horeeyeen unionkii aan idiin sheegay Somali Official Union oo aan saan hore tegay ahaa aad iyo aad awood xooga lahaa dowladda taasantay dadkuna taabtiin marka maadaama aan sharaf u yeeshay inaan madax ka ahaa oo odayaashii maamulka sharafta lahaana ay guddida fulinta ay ka mid yihiin ayaan isugu yeeray shir waxaan idhi arrintaasaa layna weydiiyey waxaan jecelahay inaynu ra'yigeena ka dhiibanno taasoo ah maxaad waxaanu maqalay somaliland waxay u imanaysaa soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo maxaad shuruud haysaan oday wuxuu ku soo adkeeyey wafdiga waa in shuruud lala yimaada intaan midnimada la hirgelin markaa deeto markii aanu shiray waxaananu la nimid amba soo gudbinay shuruudda soo socota haddaan i xusuusiyo annagu markaa yani powerka siyaasigii gacanteeda kuma jiro laakiin waa urur cid waliba dowladda ingiriisku ay taxgeliso dowladda soomaaliyeed markaa dabatayna ay taxgeliso dadka soomaaliyed ay taxgeliyaan waxaanu shuruudda soo socotaa kii qodobkii ugu horreeyey wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed midaysani hadduu gees noqdo amba somaliland amba soomaaliya prime ministerku ra-iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa waa qodobkii ugu horreeyey qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan 60 iyo 60 qodobka saddexaad wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiicana loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay qodobka afraad haddii caasimaddu ay meel noqoto xataa maana odhan muqdisho safaaraddii caasimadda timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale jeyshka waddaniga ah waa in nin sarkaala oo labada geesood ka tirsani uu hogaamiyaa booliiskana sidoo kale yacni la qaybsadaa midna somaliland ay hogaamisaa raggeedu midna soomaaliya raggeedu hogaamiyaa shaqaalaha dowladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka la odhan jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo waayo waxaanu ogaanay xagga soomaaliya koonfurta in mushaharku aad iyo aad u hooseeyey
kaleeto ay barlamaankii u tageen barlamaankii somaliland odayaashii xisbiga iyo dowladda markay u tageen waxa ay barlamaankii ay caddeeyeen waxay yidhaahdeen ma doonayno inaanu wax ka hor yimaado taarkii aanu u diray samayn macnaahu waxaanu nidhi biduun qayd oo shuruud la-aan baanu ku imanaynaa marka iminka anagu iyadoo caynka aanu nidhi iminkana shuruudan ma doonayno inaanu idiin dhiibno markaas bishii abriil 15 ayaa wafdi loo diray muqdisho uu hogaaminayo maxamed ibraahim cigaal odayaasha kale la socdaana ay ahaayeen sida soo socota axmed xaaji ducaale oo ahaa ministry wasiirka tarawaadka dabiiciga ah cali garaab jaamac wasiirka howlaha guud xaaji ibraahim nuur wasiirka arrimaha bulshada waxaa kaloo barlamaanka ka raacay yuusuf iimaan maxamed cali faarax cabdillaahi maxamuud qablan muuse rabiile aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey markii ay tageen dadkana u soo dhaweeyeen saaxiibadood baarlamaanka soomaaliya u soo dhaweeyeen maalintii labaadba waa la fadhiistay oo shir baa laysugu hor yimid haddii aan tilmaamo geesta koonfurta amba soomaaliya waxaa chairmanka ahaa shirkaas aadan cabdul cusmaan oo markaa baarlamaanka u sareeyey cabdillaahi ciise oo prime minister ahaa maxamed sheekh gabyow oo ahaa wasiirkii arrimaha dastuurka maxamuud cabdinuur juuju lagu magacaabi jiray wasiirka howlaha guud iyo isgaarsiinta maxamuud yuusuf aadan muuro oo ahaa wasiirka tacliinta sheekh maxamuud maxamed faarax oo ahaa wasiirka cadaaladda xaaji bashiir ismaaciil oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka cabdulqaadir maxamuud aadan soobe oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo xaaji cabdillaahi mursal iyo sheekh maxamed isxaaq talaad marka bisha 16 ilaa 22